السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Soomaaliya Online Money Makers. magacaygu waa Khaliif Maxamuud Cabdullaahi. waxaan rabaa inaan ku siiyo laba shay oo ku saabsan shirkadda Maybank Addis oo ah sida lacag loola baxo iyo cadeymo aan ku raaci doono. kusoo dhawaada mar kale. markaad soo gasho website-ka sign in aad tiraahdo sidaan oo kale ay ku soo baxayso magacaaga iyo password-kaaga ayaa gelinaysa iyo captcha code-kaaga oo mar walba aan lagu sii doono tiro cusub. 20 ilbiriqsi ayuu wareegsan doonaa kadibna waxaa la continue to my account. sidaan ay ku soo baxayso waa dashboard-ka account-kaaga. markay sidaan kale ku soo baxdo waxaad tagaysaa finance meesha la dhahayo finance markaad tiraahdo waxaa kasii dooranaysaa with request with the role saddex mar ayuu ku weydiin doonaa inaad 10 ilbiriqsi ka samaysid ama click siisid xayeysiimo ku soo bixi doona. marka saddexdiiba ku dhuftay request with the role ayaa mar labaad leedahay sidaan ayaa ku soo baxaysa. marka lacagtaan baysan kula baxa lacagtaan rabo inaan la baxa gelinaysaa kadibna meesha aad rabtay inaad lacagta ay kugu jirto ama aynan haddii tahay oo lacagta ama cashka markaas submit ayaad leedahay. marka aad tiraahdo wuxuu ku weydiin doonaa security code oo ah mid aad hore u samaysatay. marka aniga awal waxaan u samaystay tusaale ahaan meesha aan ku dhasho kale magacayga baan hadda gelinayaa kadibna withdraw ayaa leedahay wakaas successfully withdrawalkii hadda lacagteedii hadda waa codsigii aan samaystay waa laga aqbalay oo lacagteeda waa laysoo xawilaya. meeshan waxaa ku qoran adbacks-ka active-ka iyo adbacks waxaa la yiraahdaa wixii lacagtaada aad ku bedelatay ama saami ma lagu yiraahdaa Soomaaliga saas aan malaynaya adiga wax noocaas ah. marka 200 xabban ka haystaa. marka halkani waa meesha ugu muhiimsan 4 kadib waxaa laga doonayaa inaad 10 mar oo min 10 ilbiriqsi aad garaacdid waxay Soomaaliya Online Money Makers iyo sharaxaad ku saabsan sida lacag loola baxo hadda aan tuso lacag la baxay iyo qaabka la baxay. marka aad timaadid finance sidoo kale withdrawal history ayaa leedahay waxaa ku soo baxay record-kaagii hore mar intii mar aad lacag la baxday iyo waqtigeeda la baxday iyo inta ay dhamid. waa ka halka kore cas waxaa ku qoran 550 senti inaan la baxay. halkan waxaa ku qoran taariikhii lacaga aan la baxay iyo taariikh walba inta aan kala baxay. page-ka labaad aan ku furo hadaba page-ka labaad waa ka saasagana laba line ayaa ku taala. halka kore cas waxa uga jeedaa mar labaad record-ka inta mar aan lacag kala baxay 13 mar. marka marka waagi hore waxaa shirkadu sameeyay jiray waxay ahayd automated withdrawal oo marka click siisa lacagtaada hore kaaga soo dhacaysay laakiin hadda waa la joojiyay oo shirkado kale oo iyada lamid ah waxa lagu sameeyay dad hackers ah waxay intay software wax u samaysteen iyadii wax iska daba marsiiyeen. marka dhib badan ba ku dhacay shirkadaas. marka waxay dhahdeen shirkadan si aan taas uga hortagno annaga ma rabno inaan automated aan si isticmaalno. marka manual ay ka dhigan oo dad shaqaale caadi ah lacagta bixinayo oo lacagta waxa loo siinayaa sidii loo soo kala horeeyo. marka taas waxay keenaysaa in lacagtaada laba maalin ay inta badan ay maqnaato sidii soo qoran ayaka. marka aniga hadda laba maalin ay iga maqan tahay pending waata ku taagan wali. markii horeysan arka laba maalin iga maqan tahay way. marka sometimes waa dareemi kartaa markii bini'aadamka iyo computerka isku speed ma ah. marka for security wadiguna way ku fiican tahay shirkaddu inay mar walba security ay si adkayso. marka shirkadana qofka iskale waxa la yiraahdaa Uday waa nin Singapore dhalasho Mareykan ayuu leeyahay xagga deganaa jiray shirkadda xagga ka soo aasaasay. marka hadda wuxuu soo guuray Singapore wana nin ay la shaqeeyaan top marketers oo 12 qof ah wana nin arrimahan wax badan ka soo shaqeynayay. marka arkankayga si hor ku aragteenba ama markii hore dashboard-ka aan furay waqtiga la diiwaan galiyay iyo wax saxda way ku qoran yihiin magacayga inaan furay December 10keedii 2015. marka hadda wuxuu furayaan sanad iyo xoga. taasi waxay sharaxaad ku saabsan Soomaaliya Online Money Makers sida lacag loola baxo Maybank Addis iyo cadeymo aan idin raaciyay oo ku mahadsantiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.